السلام عليكم مقعيق ومريان هيبة يوسف وحنا هجبر ريال خاتمو دقن ودن كهولن وحن كميد هاي شالية دهولن ريال خاتمو وحن لاي هاي ونهوده الصومرين يا أمد الصومرين عيد وناكسن جارهان أمد ريال خاتمو وحن لاي عيد وناكسن عيد مبارك إلهي وحن إنه قبر يا دمان تنبت تذكر ريال خاتمو جودها يدبد شالية ده ملك استأي شوغان يجي مدحده دبا عيد وناكسن إلهي إنه كردقه إن سنة كدنبا كوارنو نبض إيا خير waxaan kaloo doonayaa inaan dhaho oo aan taageero oo aan soo dhaweeyo shirka khaatumo ee ka dhacaya taleex ee loo balansan yahay 12 Oktoobar ee ay noogu dhawaaqeen madax dhaqameedkeena reer khaatumo madaxda khaatumo waxaan leeyahay guuleysta gaar ahaan garaadada G11 iyo saddexda madaxweyne iyo wasiirada iyo inta noo halgamaysaba waad ogtihiin khaatumo waa loo soo halgamay SSC baa la soo sameeyay SSC na waxay dhashay maamulka khaatumay dhashay sida ay SNM u dhashay Somaliland sida ay SSDF Puntland u dhashay ayaa SSC na khaatumo u dhashay rag iyo dumar dadkan reer khaatumo way u soo halgameen dadkani halganka ugu horeeyay ma halgankii Soomaali lagu xoreynayay ayay u soo halgameen marka waxa way libinteena waynu gaaraynaa waxaan leeyahay shacabka reer khaatumo meel kasta ay joogaan taa ku seexdaan oo ku soo toosaan mid baan leeyahay dawladda federaalka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxa weeye intaan Soomaali kala ma cid kala dooranin ayaanu codkayaga siin subaxii maxay madaxda dalka loo codeynayay habeennimadiisii campaignkiisana ku jirnay waxa kamid ahaa cali khaliis galeyd professorka yaga Allah daay magaciisa jire ayaa maxay ka qayb galay xafladiisii sidaanu maxay ugu lisnay noogumu maxay lisin waxaan leenahay madaxweynuhu maxay tahay joojiyo ka xaglinta uu ka xaglinayo maamulka khaatumaystay dadkana dad la xaqiira kara maaha dad maxay tahay la xumayn kara maaha waxa weeyaan dad saddex gobol la weeye marka waa inuu sida maamul goboleedka kale uu taageerayo u taageera u soo dhaweeyaa mid kale waxaan rabaa inaan istimada reer khaatumo aan mid iraahdo waad ogtihiin maamulka aynu dariska nahay in badan ba maxay tahay lugta inoo hayay maamulka doonaya maamulka Soomaaliland ee doonaya dhulkeena iyo dadkeena iyo shacabkeenaba inuu maxay tahay hantiyo inay xaglaha inoo hayeen maanta waxa la soo gaaray maalintii aynu Puntland aynu kala bixi lahayn waad ogtihiin Oktoobar waxay u fadhiisanayaan inay xildhibaanadooda soo xulaan waxay u ham iyo digleeyihiin maanta waxa weeye si ay u heli lahaayeen garaad ama ugaas ama suldaan ka soo jeeda khaatumo maanta garaadada khaatumo iyo salaadiinta khaatumo iyo ugaasyada waxa looga fadhiyaa maanta qaybtiina halgankiina idin taala tan waxa wax ka bedeli kara shacabka ma tan waxa wax ka bedeli kara waa idinka waa garaad waa salaadiinta reer khaatumo idinka maanta cadeyn kara sinjiyadayada inaan nahayn Puntland ee aanu nahay dad reer khaatumo oo asal fasal ah sinjiga iyagu yahay khaatumo calan baanu leenahay ciid baanu leenahay gobolanu leenahay dad la qarin kara manhin 12 Oktoobar waxaanu dooranaynaa xildhibaanadayada iyo madaxdayadii halka waxaanu ku astaynaynaa dastuurkayagii halka waxa lagu waxaynayaa dastuurkii khaatumo caalam baanu leenahay dawlad baanu maantana dad maanta dib u laaban kara manhin dadka iyagu haday hurdaayeen ay hurdeen ama lagu seexin jiray boowe hartibaynu nahay walaalbaynu nahay boowe maanta waanu garanay kulata reerkani soo laaban maayo wuu isku tashaday tani maanta waxay maraysaa 2 sanadood khaatumo maanta 2 sanadood bay maraysaa almost meel aanu ka soo laabanna ma jirtee meel aanu taaganahay meeshaanu higsanaynay ayaanu maanta u dhownay laydkaygii baa ii baxay midda kale waxaan doonayaa
شيء 11 iyaga waxaan u dirayaa maxay haytay codsi baan u dirayaa شيء 11 waxaan leeyahay professorada iyo doctorada iyo engineerada siyaasiyiintayada aqoon-yahankayaga waxa weeye horta waad ogtihiin beel intaasoo aqoon-yahan leh ma jirto aan beeshayada ahayn maanta waanu ognahay inaad noo halgamaysaan magaciin ha jiro cadowgiinna ha jiro mid baan maxay idinka codsanaynaa soomaali way kala tagtay soomaali hadday kala tagtay soomaali maanta waxay u kala ordaysaa waa interest iyo beel waliba inay beesha kala duudsido waxaa loo kala ordayaa waa Itoobiya iyo Kenya maanta waxaan ku leeyahay maamul goboleed ku xiran xamar oo u fadhiya oo hoos fadhiya iyo calan ma jirto taa wax naga reebayaa ma jirto halka loo wada ordayo waa wax nooga raadisaan waa inaad Itoobiya iyo Kenya xiriir wanaagsan oo qoto dheer aad maxay la gashaan dhulkeenu wuxuu leeyahay khayraad buu leeyahay baasiinkan maanta labada maamul ee geesaha inaga xigaan ay sheeganayaan inaga iskale hol baynu leenahay New Valley baynu leenahay waa in Itoobiya ay nagala shaqeysaa sidii baasiinkeena loo soo saari lahaa maanta interest bay maraysaa haddii maxay tahay Soomaali way soo keentay Soomaali waxay noqotay labada maamul ee geesaha inaga xiga ee Puntland iyo Somaliland iyo dawladda federaalka inoogu darsoontay oo maxay tahay garbaha inoo qabatay maanta Soomaali waxaan ku leeyahay waxay taagan tahay meelay maxay tahay xaqeena la qariyo waad arkaysan wixii Belgium ka dhacay inagoo laynagu xasuuqayo oo laynagu dilayo ciidda iyo calanka iyo midnimada Soomaaliyeed ayaa Soomaali waxay isku raacday inayna xaqirto taa waxay idin tusaysaa Ali Khalifa iyo Ali Ciise Cabdiyo taasi maanta waxay idin tusaysaa Soomaalinimo inaysan jirin ninkii maanta waasha ee maryaha dhiga ayaa loo joojiyaa nin miir qaba oo waxaan ku leeyahay waddan iyo cid maanta uma joojiso waad arkaysaan Jubbaland maalinta maxay tahay miiska garaacaan baa la soo fadhiisiyaa Puntland maalinta waa miiska garaacada la soo fadhiisiyaa Somaliland oo Taiwan go'ay baa maxay tahay la sasabaya innagana maalinteeni baa la gaari dad waalan baad rabtaan inay dhahno way miir qabna dadka way nala waasha waxa weeye waa inaad inaga baasiin leh Ingiriiska iyo Itoobiya inay nagala shaqeeyaan maxay tahay baasiinkeena shacabka reer Taleex iyagu waxa si gaara ayaan u salaamayaa shacabka reer Taleex oo u dhabar adeegay intaas oo siyaasadood ee dul saaray u dhabar adeegay sharaftayada iyo karaamadayda inay difaacaan iyo dawladnimadayada waxaan leeyahay guuleystaan leeyahay gabadh iyo wiil oday iyo maxay tahay marwo guuleystaan idin leeyahay dadka reer Khaatumo jaariyadaha dibaddu meel kasta ay joogaan way idin og yihiin maalin baa abaalkiina la gudi doonaa taasina way dhowdahay وبالله التوفيق waxaana u hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda ku dhaqan gobolada SSC ee reer Khaatumo magacayga iyo muuqeedaba taqaana waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciideeda ku gaara caafimaad farxad iyo barwaaqo iyo bashbash labaad aan fursadeyda uga faa'iideysanayaa waxay tahay waxa weeye in aan ilaahay ka baryayo in shirka aynu sugayno October inooga qabsoomaya si habsami leh iyo si afgarasho iyo cadaalad aynu ugu soo dhamaado aynu ku doorano madaxweyne kaliya ilaahayna ha ka dhigo kii dalka soo celiya deegaanada inaga maqan gacanteena ku soo celiya waxaana kaloo idin kula dardaarmayaa bulshada ku nool Khaatumo inaad ogaataan midnimada isku duubnida taasoo ah kaliya aynu kaga bixi karno marxaladda maanta taagan iyagoo leh laba cadow oo hareeraha ka xiga oo
si cad had iyo jeer u hagardaameeya bulshada SSC ee reer Khaatumo. ugu dambeyntii waxaan salaamayaa dhammaan golayaasha Khaatumo ay ka kooban tahay jaaliyadaha dibadda oo ah lafdhabarta ay ku taagan tahay maamulka Khaatumo, ciidamada qaranka ee naftooda hurayaasha ee had iyo jeer dhaxanta u seexda si ay u soo celiyaan deegaanadooda ka maqan. waxaan salaamayaa madaxweynayaasha, garaadada, wasiirada, agaasimayaasha G11-ka. waxaan idin leeyahay hamigeena waynu gaaraynaa insha Allah guul iyo gobonnimo. Khaatumana waa fikradda kaliya aynu ku midaysanahay maanta. guul iyo gobonnimo insha Allah khayr bay noqonaysaa. waynu guulaysanayna hamigeena waynu gaaraynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaadintii dalkiyo siyaasiga iyo waxgarad cuqaashi suubanay golihii suugaanta iyo sabkii hooyooyinkiiyo hablihii sawdiyo muniyo dariya layliya ayaan sabax waa wada dhanahay taleex baan saaka nimi adii kale waxaa lahaa salaadintii dalkiyo siyaasiga iyo waxgarad cuqaashi suubanay golihii suugaanta iyo sabkii hooyooyinkiiyo dariya layliya ayaan sabax waa wada dhanahay taleex baan saaka nimi adii kale waxaa lahaa taleexay suubanayso yaalkii aabihiyo hooyadii Soomaaliyey salaam baan kuu sidaa adoo sarakacay guddoon adii kale waxaa lahaa shirweynaha waan sugno saadaalinaye barwaaqiyo saganbaxiyo mid Soomaali u daniyo allow sama nooga yeel adii kale waxaan lahaa allow sama nooga yeel. waraniga waxaa la yidhahdaa Cabdiraxmaan Jaamac Ursame Gaanda oo ka tirsan qaliyada Khaatumo ee waddanka Holland khaas ahaan magaalada Rotterdam. waxaan salaamayaa ciidan wanaagsan ee Ciidul Udxaaga dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay iyo islaamka khaasatan jaaliyadda aan ka soo jeedo waa Khaatumo. waxaan u hambalyeelayaa shirkooda saddexaad ee ka dhici doona haddii ilaahay idamkeeda u leeyahay 21 bisha magaalada caasimadda ee ku meel gaarka ee Taleex oo aan ilaahayna ka sii baryayo in dhammaan ummadweynaha ama dadweynaha Khaatumo meel kastoo ay ku nool yihiin qalbigooda iyo beerkooda bay ilaahay u burcad isu mariyo ay nabadgelyo iyo wanaag isugu yimaadaan kuna dhistaan dowladdoodii ay kaga bixi lahaayeen ku meel gaarka si sharaf leh oo wanaagsan baan ilaahay uga baryayaa maalintaa barakaysan inay ugu dhammaato oo ay lugahooda isku taagaan iyaga oo ka mid noqon doona maamulada cusub waliba kuwa ugu qiimaha badan uguna sharafta badan dhaafi doonana haddii ilaahay idamkeeda leeyahay kuwa jira oo in badan jiray ayaan anigu u dirayaa shacabka Khaatumo ku hambalyeynaya inay isku tiirsanaadaan iska ilaaliyaan wax allaale wixii tafraarad iyo dhibaato u keenaya gudahooda ka midaysnaadaan danahooda iyaga gaar u ah ee aanina gooni u ahayn. Khaatumo waa Khaatumo nin kasta oo Khaatumo ahina waa Khaatumo nin caarad dheerina ma jiro. danta Khaatumo ayaynu ku midaysanahay qabiil ku nahay sharaf ku leenahay dawlad ku nahay isugu nimid kuna dhammaysanaynaa danaheena oo dhan. aad baad u mahadsantihiin intay maqlaysa dhammaantiinba waan idin salaamay sidaa iyo nabadgelyo iyo ciid mubaarak. London. waxaan doonayaa inaan halkan ugu hambaliyeeyo maalinta Ciid al-Adha ee dadka muslimiinta aad iyo aad ugu weyn dadka muslimiinta adduunyada meel kasta ay joogaanba gaar ahaan
dadweynaha reer khaatumo meel kasta ay adduunka joogaan waxaan kaloo salaan u dirayaa madaxda reer khaatumo golaha fulinta iyo dadka reer khaatumo adduunyada meel walba ay ka joogaan waxaan kaloo doonayaa fursadan inaan uga faa'iidaysto inaan shirkeenna ka dhici doono 12 Oktoobar magaalada Taleex aan uga hambaliyeeyo dadweynaha reer khaatumo waxaan ku bogaadinayaa sida wanaagsan ay u sameeyeen shirkooda waxaan kaloo rabaa inaan hambaliyo u diro dadweynaha reer Taleex oo ah dadka naftooda u horay inay isku keenaan dadka reer khaatumo meel kasta ay joogaanba meeshaas oo aan ku dhisan doono dowladdeena rasmiga ah maadaama ay dowladdii hore ee naga dhamaatay ahayd milgaar waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay ka dhigo dowladdii xaafirada reer khaatumo wax wanaagsan u qabata reer khaatumo ilaahay waxaan uga baryayaa inuu gobooda ducad ku mariyo sababtoo ah dowlad walba oo la dhisaa dhibaato lagama waayo carqabo yaryar way jiraan marka waxaan reer khaatumo waana adkaysi lahaataan dulqaad aad lahaataan ilaahay amarkiisa wax wanaagsan baynu gaari doonaa dadweynaha reer khaatumo waa dadweynaha midnimada Soomaaliyeed keenay waa dad aad iyo aad qaali u ah waa dadkii calanka waa dadkii daraawiishta ahaa weeyaan marka ogaada sidaa u ogaada dadka ka wanaagsan ma jiraan maasha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inaan aabahay oo joogo magaalada Buuhoode aan salaan ugu diro maalinta ciida iyo ehladayda meel walba ay adduunyada ku joogaan salaamu calaykum إن شاء الله تعالى مر لبعض بندون يا فكر كي مثلا خطأ هالكن مركو عيد مبارك ومدة الإسلام كمل كستيجوجان خاصة تذكر هالقاتمو كنوا رسول سنة عين قرب بتشوكتا مل كستيجون كل النولين حق يد مربع وحمدون يا صدق الريموت حمدون يا ومدة هالقاتمو ما متقبلات كقاتمو يستيج فكر أخان وحن كأم من سنة هاي وحيالها يبقى هاي فكر كيو انت ويقسيي أيام دون يأير إن شاء الله تعالى هل كينا نكابله وحن دون يأينا نكابله صدح ذا قضب واه مدأ دون يأينا وحي رياضه ضدك خيخها تمو مصير كأمد هيا تاس معناه هو ضدك مدحضا مصير كأمد ضدك هيا واسم مدوي هي مدحوينياش waxaan doonayaa shacabka خير خاطمو iyagana inaan wax yareeyo waxaan kaloo doonayaa inaan ka hadlo dawladda federaalka ee maanta dalka Soomaaliya ka jirta Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka yahay waxaan doonayaa inaan ugu horeysiyo marka ugu horeysa shacabka خير خاطمو meel kasto ay joogaanba waxaa looga baahan yahay in ay ku tashadaan u diyaar garoobaan wixii dalkooda iyo dadkooda horumar ku gaari lahaa wixii dadkii ay dhalaan iyo kuwa ay sii dhali doonaanba ay ku noolaan lahaayeen xarago iyo sharaf sidii ay ugu taliyaan waxaan doonayaa inaan waxyaalo yaryar oo tusaale ah siiyo war nabadgelyadu waa qaali waxaa lagu raadiyaa nabadgelyada afkaagaa lagu raadiyaa maalkaagaa lagu raadiyaa socod baa lagu raadiyaa hadday ka fursan weydana warwaranka caaradiisaa lagu raadiyaa dadka sool sanaag iyo cayn degan maanta dadka ugu dhibaatada faraha badan ay soo martay waa dadka degan meygaagle iyo kalshaale maantana xayiga ay ku nool yihiin iyo sharafta iyo meesha ay rabaan inay seexan karaan waa dadkii waa dadka ugu sharafta badan dadka reer Khaatumo waxa ay u dagaalamayeen waxay ahayd dalkooda inay u tashadaan inay iyagu ka taliyaan horumarka balaaran ee maanta deegaamadii ka socda wad ogtihiin iyaga u tashada iyaga meeshay doonaan beerta
iyagaa meeshay doonaan cashuurta ka qaada iyagaa meesha ay doonaan xeerta sida ay doonaan bay ugu baashaalaan ugu seexdaan waxaan loo hawshoonin dila ay kuna yahay manfac ma keenaan haddaan cadan carab wuxuu yidhi ilaahay jannadiiyo naxariista ha ka waraabiye haddaan maalintii muran ka dhicin mawdna ka adeegin maxamuud cigaal caana geel kama maqsuudeen maatada diracdii karuur kuma masruuftin war waxa haddaan loo shaqaysan gobonnimada iyo sharaftu iskama timaado shacabka reer khaatmo waxaan leeyahay war bal waxaad eegtaan dadkii meygaagle iyo kalshaale joogay ee halganka ay qaadeen maanta iyo meesha ay taagan yihiin war waxaan rabaa inaad halkaa ka ambaqaadaan oo iyaga ku dayataan jiljileecna looma dhinto adadeygna laguma waaraa la yidhi kaa markaan ka gudbo waxaan doonayaa isimada madax dhaqameedka iyo madaxweynayaasha inaan la hadlo fakar yar baan doonayaa aan soo jeesto war waxaa la yidhi adduunku waari maysida war ha kaa hadho haddaad ismoodeen shaqsiyo ma tihidin isimadu waa laydin doortay nin walba waxaa doortay 7,000 oo ruux oo isugu jira cirhoole dumar iyo carruur codkar iyo caalim baa nin walba ku doortay dadka magacoodii baa sidaa waxayna kuu doorteen wax manfac iyo talo wanaagsan iyo horumarkooda aakhire iyo adduunka wixii ay iyaga ubadkooda ku noolayaan inaad u horseertaane war waxaan u malaynayaa taariikh madow ha qaadanina ma sii joogaysaan taariikhdaana idin xusaysa ninka maanta qaata taariikh madow qaata taariikhda qoraysa dad buu dhalay wuxuu doonayaa inuu dadkiisaasi xil qabto dadka u sii taliyo warba taariikh madow ha ka tegina waxaad raadisaan taariikhda fiican raadiya mar walba inaad dalkiina iyo dadkiina u horseedaan intaa markaan kaga gudbo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dhan baa dooratay 18 gobol baa isu yimid qabiilooyinka Soomaaliya oo dhan baa isu yimid isimada Soomaaliya oo dhan baa isu yimid aaska dowladda maanta Xasan Sheekh Maxamuud ka yahay waxa aasaasay isimada Soomaaliya ujeedada isimada meesha looga aasaasayna waxay ahayd beelaha qabiilooyinka Soomaaliyeed ee gobolada kala duwan dega in ay ka wada qayb qaataan in ay dowladda ku wada kalsoonaadaan dowladuna hadhow ay la shaqayso war Xasan Sheekh Maxamuudow haddii aad istiri deegaanada qaar ignore gare oo Somaliland alaalis la sameey qabiilka Isaaq la yiraahdo oo dhulbahante ignore sar si ay u hoos tagaan Isaaq war dhulbahante Isaaq hoos tagi maayo 20 sanadood buu la dagaalamayay mowqifkooda diidana deegaan gaara bay leeyihiin calan gaara bay leeyihiin waa dad gaara adiguna ma hoos geyn kartid 20 sanadood bay hoos tagi lahaayeen adiguna maanta hoos gali mayside waari maysida adiga u dhaada war ha ka haro waxa la yiri Xasan Sheekh Maxamuudow karis xunay ku hambalay wala karis xunay adna wax ku halid haddaad istiisaaq way hoos tagayaan dhulbahanta haddaad ignore garaysid no way ma hoos tagayno laakiin wala adna ka baaqatay xilkaagii adiga baa xilkaaga ka baaqanaya kaalintii laga rabay baad ka soo bixi weyday dhulbahanta waxba ma yeelaysid adigana intaasaan ku yiri insha Allah ta'ala kulliba waan ku soo laaban doonaa fikirkayga waa mar labaad baan idin salaamaya ciid mubaarak baad leeyahay dhammaan meel aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان ضد الصوماليين مركز شفتو وحان لها عيد مبارك بان لها هاي عيد ونكسن جارهان وحان هلقن همبريق يبقادين وقدر يا ضمان شعبك هيرقى مركز عالم جنوليهين intaa markaan ka gudbo waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa oo u hambalyanayaa ragga isku taagay maanta inay muxuu ahaa ay isu keenaan qaasmo shirka abaabulka shirka taleex ka wada ayaan hambalyahalkan uga dirayaa iyo bogaadin iyagana anigoo ku bogaadinaya hawshaa culus ee ay muxuu ahaa gacanta ku hayaan inay meesheeda kasii wadaan annagoo ah shacabka reer khaatumo waxaan ku garab taagannahay hiil iyo hooda waan la garab taagannahay waan taageersannahay waxaanu leenahay hawl weyn baad haysaan oo aada u wanaagsan oo loo baahanyay maanta inaynu kaga baxno dhibaatooyinka baahsan ee dalkeenna iyo dadkeenna soo food saaray waktiga dheer qaatay inaynu siday uga bixi lahay hawsha aad haysaan ee aad isu taagteen waxaa loo baahan yahay siday tahay inaad u gudataan anaguna waxaan ku ducaynaa ay idin fududaato aan ku ducaynaa waxaan kaloo halkan aan ka cambaaraynayaa kuwa innaga inaga tirsan ee loo doortay baarlamaanka soomaaliya ee loo fadhiya ee aanan hadalkooda ilaa maalintay xilkaa qaadeen iyo maanta laga bilaabo aanan weli arag waxay qabteen iyo waxay ka hadleen iyo meelay marayaan iyo ciday wax u sheegayaan soona aanan arag kuwaas waanu cambaareen waxaan leenahay hawshii laydin doortay ee khaatumo aad booskeeda u fadhiisateen dowladda federaalka aad uga gasheen waad galdeen kuwaas waynu cambaareenna sababtoo ah waxaad matalayseen khaatumo reer khaatumo aad matalayseen idinma anaan arag marka aan ka reebo cali khaliif galayd barso cali khaliif galayd oo isagu hari habeen u taagan muxuu ahaa arrimaha khaatumo u taagan waxaan isagoo hawshiisa uu ka soo baxay laakiin kuwa kale ee xamar ka dhigtay saldhig ee aanaan weli hadalkood maqal ee aanaan weli adag waxay ka hadlayaan iyada oo hagaardamo aan qarsoonayna lagaga hayo deegaanka khaatumo lagu hayo iyagoo aan hal maalina ka hadlin kuwaas waanu cambaarayana waxaanu leenahay markiidin muxuu ahaa khaatumo markiidin baanu leenahay xilkii laydin doortay aad khaatumo ugu dhaarateen waad ka gaabsateen waan leenahay mutacasila baan wadi leenahay kuwaasna intaasaan leenahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinayaa shacabka soomaaliyeed ee maanta khaatumo muxuaha reer khaatumo ee isu taagay inay maamul samaystaan ruuxada ay kaga dhareeya oo gabcaha iskabsada idinkoo arka dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya sida ay dhabarka idinku soo jeedisay ee haba yaraatee wax maanta ay muxuha idin haysa aanay jirin ee aad aragtaan muxuu ahaa inay muxuu ahaa ay idin galeeyeen dad isu dhashadaydu si aydan caalamka muxuu ahaa maamulada kale uga harin waa aydan muxuu ahaa maanta meeshaas aynu joogno waynu ogna shacabkeenu taagan yahay deegaanadeennii baynu aragnaa in la isku haysto oo reero kale ku gurdurtamayaan oo reero kale doonayaan inay ku qaataan waxaanu leenahay aynu ka baxno dhibaatada baahsan ee shacabkeenna waktiga dheer haysay aynan sida uga bixi lahayd waad falowgeed baa haysaa waa isu garab taaganahay insha allah ilaahay aynu ku guulayaan leenahay hawshaa muxuu ahaa xilkaada qaadeen anaguna waan isu garab taagannahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan salaamaya anigoo wax adin xaaji xuseen oo ka tirsan jaaliyadda finland ka tirsan waxaan leeyahay waxaan leenahay hawshaas waan isu garab taaganay hiil iyo hooda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah
meel kasta ay joogaan waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda si khaas ah waxaan hambalyo ugu dirayaa ummadda reer Khaatumo Sool Sanaag iyo Cayn meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda waxaan leeyahay hambalyo aan leeyahay ciid wanaagsan ku ciidan ciideeda kalena waxaan leeyahay nabadgelyo barwaaqo bashbash midnimo dhulkeena barwaaqa dhulkeena nabada ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maartay inuu tuso dhulkeena nabada Soomaaliya nabada Khaatumo nabada meel walba dhulka Soomaaliya ummadda islaamka oo dhan oo wada nabadan ilaahay ka rajaynaya waxaan leeyahay ummadda reer Khaatumo waxaan idin rajaynayaa midnimo iyo gacmaha inaad isqabsataan iyo inaad maartay adawgiina meel walba uu joogaba aad u midowdaan waxaan horta si khaas ah u salaamayaa dhammaan madaxda reer Khaatumo waxaan kaloo khaas ah salaamayaa madax dhaqameedka reer Khaatumo waxaan salaam gaar ah salaamayaa ciidamada qalabka sida ee reer Khaatumo ee xaq dirirka ee difaaca ee sharafteeda ilaaliya maartay nabadgelyada ilaaliya ee cadawga naga horjooga ee habeen iyo maalin aan seexan heeganka iyo habeen iyo maalin heeganka waxaan leeyahay guulaysta waxaan leeyahay halka hawsha ka wada nin lagu seexdo ha seexan baa la yiri dadka aanu maanta ku seexano oo aanu habsano oo aanu maartay sharafteeda ku taagana waa ciidanka Khaatumo maartay difaaca waxaan leeyahay midnimada la ilaaliyo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan reer Khaatumo waxaan u sheegayaa haddayna midooban waxba ma qabsan karno adawga inaan u midowno maartay meel walba joogaba cadawgeenu waa fara badan yahay gudaha iyo dibadda cadawgeenu ku leenahay haddayna midoobinna waxba maartay ma qabsan karno waa inaan cadawga u midowno waa inaan gacmaha isqabsanno waa inaan maartay hagardaamada kuweena inagu haya wixii wanaaga aynu u sheegi karno u sheegno waa inaynu soo dhawaysano waa inaan la fogeyn xitaa kuwa inaga fikirka duwan oo la wadaad maartay la soo dhaweeyo oo maartay geed la isugu wada yimaado oo wixii qaldan la saxo oo maartay cadawguusan inaga faa'iidaysan keena xun xataa waa inaynu soo dhawaysano oo soo jiidano waayo waa wiilasheenii waxaa laga yaabaa maartay qofku marbuu khaldamaa marka kale haddii wax loo sheegana inuu soo hadeego oo soo hanuuno oo uu dantiisa garto nin walba dhulbaankaa maanta wuu ogyahay wanaagga maartay waa jecel yahay in dhulkiisa iyo dadkiisa wax noqdo laakiin kollayba duruufo iyo dhibaatana way iska jirtaa marka midnimaan inoo rajaynayaa waxaan leeyahay halkan natixdan Khaatumo guulaysato geesiyaa u kacay aqoon iyo garaad gurti iyo waxtarad ragga gacmaha isqabsada ay bay u gooni tahay kornay la geesiya janana gaafan baa warkaca kornay la geesiya janana gaafan baa warkaca ninkii gurigooda gaale gaardaraw la taaga inay gubayaan go'aankoodii buu ahaa kuwa naga guuray reer hoos galow kuwa naga guuray reer hoos galow kuwa cadow soo horgaalaye nagahadayow kurbadkiiyo dumarka kuwa jeelka gaynayow kuwan ceebta garanayne dalkood gubow kuwan ceebta garanayne dhulkood gubow kuwa sharaftoodii kateega wahawnsitow war inaad geelina dhaqaatanka waangunimo daraawiish waa dadkoodan la gaadhi karin oo dhaqanan guurin sharaf gaarabaan lahayn hadduu gees yimaha dareerka uu khilaaf dhex gaalo kadcaadiyeeda iyo gaartaagoya waa lahayn kadiinta garab taagan xaqa goobabaan ahayn kulliiba raagan qaadan oo geesiyahan ahayn raggii gaalada la diriire ka raaraygayiga taleex nimankii ku guwaaye ka saaray gaalab
قوميت الرقدي ذو تاريخ قواهين ناي فحالي هاي دمان ومدى غير خاتمه ميل بيشوغان بهمبليو مر لباد مر صدحات همبليو عن ذي الله هاي قوليستا سند كيسا كالي برواقو هرمر بش ينبض يدل كيما برواقا بان إلهي نوبر رجينيا سيدا ينبض قليو ورحمة الله وبركاته. أنا جوا نساء أحمد سعيد وكنا الودن كإنجليزكا خاصة مقالدي لندن عاصمتنا لكن حنبليو يبو قاعدين وقدريا دمان شعب وينها الصوماليات جارهان شعب وينها خاتمو استيت الصومالية وحن كلو حنبليو يبو قاعدين ودريا ما ملك يجا شرفت له قيمها له بركيسن حلاشة خاتم استير الصومالية مقع مسكين لغماها وحن كحكينا يا همبليا قالقا إن هودا وصومرنا يا 11 شي 6 مدحدا قاتمو ملكستي جوغان اسمدا يدا شعب وينها رقي الدمر أقون يهندا يدا اسمدا يدا عالم كم ملكستي الدنيا كجنو ليه وحن صدر يا تهنيات قالية وأن لستفين كرينين وحنبارسن يعني من نيد صافية وأه ayaan u soo marinayaa waxaan idin leeyahay maamulka khaatimo waxaan leeyahay shir oo joog baan ku leeyahay waayo waxa tahay maamul saalaxa waayo waxa tahay maamul saliim ah cidna ma ducaysid cidna ma qalin daartid cidna ma faragelisid adaa lagu soo doontaa dadka ku soo doonanaya hareerahana insha Allah biidnillah waxaanu leenahay diidiga awadan idinka ku jabi idinka ku dhiman idinka ku go'i waayo ciidan hiilisa xaq darradu waa cajaa'ib ciidan hiilinaysa reer khaatimo ma gabadaan waana istifaacan meel kasta dunida kaga nool yihiin ayaan leeyahay shacab weynaha khaatimo waxaan leeyahay niyad jabina waayo maamulkeenu sanad kaliya jira sanad quru jira marka waxa weeyaan maamulku markuu soo cusub yahay waa miruhu iskama baxo midho la'aan miraha hogga loo qodaa biyaa lagu shubaa markaasuu geedku soo baxaa waynu harsan doonaa waxaynu naawilayno waynu harsan doonaa oo waynu ciludahaynu isqabsan oo waynu maali doonaa shiiraalka ku jira holhol waynu cabi doonaa oo waynu maali doonaa oo dadka ugu rijisan adduunyadaynu noqon doonaa maamulka khaatimo isku tashadaan idin leeyahay ee shacabka reer khaatimo waad ceeshi doontaan dunida maanta kaliya ma aha ilaahay wuxuu ina siiyey dhul cajaa'ib ah oo khayraad ku jiro marka waxaan idin leeyahay haniyad jabina meel kasta dunida ka joogtaan anagu jaaliyadaha dibadda haddaanu nahay habeen iyo maalin waxaan usoo taagannahay waxa weeyaan sidii aanu u kicin lahayn dhulkayaga iyo dadkayaga sidii aanu u soo kicin lahayn ayaan habeen iyo maalin ku jirnaa ilaahay nagu ogyahay waa la yaqaanaa jaaliyad walba way taqaanaa jaaliyadda london waa la yaqaanaa caan baan ka nahay annaga waanu habeen iyo maalin heegan baanu ku jirnaa kama daalayno ma niyad jabayno farolena ma niyad jabin karayo filaayana nama niyad jabin karayo waayo iyaguba duurkay ku soo jireen annagoon duurka galin ayaan adduunyadii la sheekeynay oo adduunyadii iska soo dhaadhicinay waxay qaatumaystee tahay madaxweynaha dalka soomaaliya waxaan leeyahay laftarkiisa waxaan u dirayaa hambalyo waayo hadalka waa la iska hagaajiyaa duunya kaa ordaysaa la qabsadaa iyo dad kaa ordaya lama qabsadaa la yidhi mudane xasan sheekh maxamuudow waxaan ku leeyahay inaad isa soo saxdo ilaahay ha kugu duwo inaad isa saxdo ilaahay ha kugu duwo annagu dadkii sacbada kuu tumaanu nahay dadkii daraawisheed baanu nahay taariikhda iyadu duugoobi mayso daalab caalamkaana laga yaqaan cid walbaana taqaana reer khaatimo waxaad ugu listay soo saar miiskaanu ku leenahay xasan sheekh maxamuudow isa soo sax kaliga cadow madow geed hoostiita isa soo sax intaa iga kaa soo gaadho madaxweynihii dalka haddaatay kugu fogaan maayo wabilaahi tawfiiq mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan hambalyo u dirayaa shacab weynaha khaatumo state meel kastuu ku nool yahay iyo maamulka yaga khaatumo state of Soomaaliya wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu